بسم الله وبرنامج كني تيجر تريننج بروجرام أما تبارك معلمك نحن قادنا principles of education أما واحد غير هذا مبادئ التربية مبادئ كسابسن وحبر الشدة أما بربارنتا وحسود جدنا يعني قواه حسين أحمد صلاة كفائدي سواء إن أنك جواب نهر تمركه لبس سؤالات بس إنك جوابنا labada su'aalood maxay tahay hadii aan Soomaali ku sheego waa maxay waxbaris ama barbaarin goorma ayay waxbarashadu cilmi ahaan u soo baxday ama cilmiga barbaarinta ama culuumta tarbiya ama education goorma cilmi ahaan u soo baxay oo maadada la barto oo lagu takhasuso ama fan min al-funuun fan la barto oo lagu takhasuso ahaan goorma ay u soo baxay waxaan ku hormaraynaa su'aasha koowaad oo ah what is education ama waa maxay barbaarin waxbaris waa maxay su'aashaas marka hadii aan ku hormarno jawaabteeda waxa laga yaabaa dad badan inay maskaxdooda ka guuxayso hadii la dhihi lahaa what is education inay dhihi lahaayeen teaching and learning waa baris iyo barasho laakiin education wuu ka baaxad weyn yahay intaas oo waxa uu gudbayaa dhinacyo intaa ka sii muhiimsan waxaa marka ku soo koobaynaa maadaama aan rabno kilibku inuu aad noogu gaabnaado oo waqti badan uusan naga qaadin laba definition ama laba taariif oo ay kala leeyihiin Aflaatoon ninka la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo Aristo midka koowaad education marka si kooban loo taariifiyo way ka weyn tahay teaching and learning laakiin waxay noqonaysaa to give somebody every possible beauty and perfection qofka inaad u gudbiso ama siiso wax kasta oo wanaag ah iyo dhamaystir ah oo suuragal ah macna dalika marka ma noqonayso teaching learning service kaliya ma noqon karto adeegii waxbarista iyo waxbarashada kaliya laakiin qofkan waa inaad siisaa wax kasta oo wanaag ah si uu environment-ga uu ku dhex nool yahay ula qabsado iyo society-gana ula falgalo تامرك waxay taabanaysaa dhinacyo fara badan waxay taabanaysaa aljanib almaarifi ama waxa la yiraahdo knowledge aspect ama dhinacii waxbarashada dhinacii kale wixii la dhihi jiray domains of education oo aan xalaqad dambe uga sheekay doono hal cashar hadii alla idmo dhinacyo badan dhinaca skill-ka dhinaca dareenka ama emotional-ka ama dhinaca aqoonta waxyaabo badan in laga dhiso ayuu qofku u baahan yahay why maxaa loo dhisayaa qofkan maxaa loo barbaarinaya maxaa wax u baraynaa wax kale maaha to adapt to the environment inuu la qabsado deegaanka ama bi'ada uu ku nool yahay bas waa intaas Aristo asna wuxuu leeyahay qofkii in la diyaariyo diyaarin dhameystiran bas towards better dhinaca wanaagsan in loo diyaariyo qofkii diyaarin dhameystiran marka si kooban marka aad isu soo celiso education maxaa waaye waa in aad diyaariso qofkii ayadoo laga eegayo dhinacyo fara badan si uu ula falgalo bulshada ulana qabsado deegaanka uu ku nool yahay sidaas ayaan education marka definition-keeda ama taariifkeeda uga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa su'aasha xigta oo ah goorma ayay waxbarashadu ama maadadan education-ka la yiraahdo ama fannigan education-ka la yiraahdo oo as science ama cilmiyahan goorma ay u soo baxay فرب الأجر متى نشأت التربية كعلم علميهان قرما أي تربية أما education كو أما بربارنتو أي أصاب بحضي علميهان وسؤال جوابتي ذنو إسكا كوبنتهاي تاريخه وآدي أباحثو انتهى لكن وحربنا كلب كان إنه نقضه كلب آد وكوبن سلامر كان فائدة بدن له يعني education كو waxa uu soo ifbaxay markii ugu horeysay oo madraso ama macahad bini aadamku uu sameeyay taas marka waxa ka dhalanaysa su'aal kale goormay ahayd xagee ahayd waxyaabo badan madrasadii ugu horeysay oo bini aadamku sameeyo ama uu yaqaano oo qaab systematic ah ku socota waxa ay ka soo ifbaxday wadanka hadda loo yaqaano Iraaqiya gaar ahaan Madiina Awr la yiraahdo Madiinatu Awr waxay ku soo baxday oo madrasadii u horeysay dhisay nimankii la dhihi jiray Soomariyiinta madrasadaas nidaam waxbarasho oo systematic ay lahayd waxay u dhisneed qaab ah ra'sul madrasa la yiraahdo oo miya ay yaqaaneen ayagu al khabiir ama al aarif luqada
ku noqonaya expert qofka ah oo madrasada madax ka noqonaya iyo qof kale oo ah mas'uulul fusul fasalada dhan qof mas'uulka ah waxaan xusid mudan madrasadaas inay ku socotay falsafa tarbawiya ama educational philosophy oo ilaa haddadan la isticmaalo oo ah al-muallimu akhun lilkabiiri wa abun lis-saghiri waxaan la yiraahdaa muallimku wuxuu aabbo u yahay qofka yar qofka weyna walaal ayuu u yahay marka sidaas madrasadaas waxaa la dhihi jiray muallimka ayaaba waxaa lagu neynaasi jiray al-akhu al-kabiir walaalka weyn ardagana maxaa la dhihi jiray ibnul madrasa canugii iskuulka marka isku soo wada duube tarbiyadu waxay soo baxday markii madrasadii ugu horeysay ay soo baxday madrasadaas xaggee ka soo baxday ciraaq gaar ahaan madiinatu ur la yiraahdo yaa hoostagi jirtay as-Soomariyiin nidaamka waxbarashada oo madrasadaas markiisii hore wuxuu ku bilowday at-ta'liimu lil aghniya faqat education for rich people only xalaqadana intaas ayaan ku joojinaynaa dhageysi iyo ka faa'iideysi wanaagsan